ku sheegtay inay Puntland ka socdaan weeraro hadafyo kala duwan leh wajiyo badan leh lagu diidan yahay deganaanshaha Puntland dawladnimada Puntland iyo horumarka Puntland dadka diidanayay yihiin horumarka iyo deganaanshaha Puntland طبعا عدوغا umada Soomaaliyeed iyo cadowga Puntland waa ay badan yihiin waa nooc badan yihiin laakiin cid kasta oo deganaanshaha iyo nabadgelyada dad degan oo nidaam iyo maamul kala dambeyn leh faralka ka fudusto waa cadow marka cadowgaas annaga nooma kala socno cid kasta oo cadow ah oo Puntland cadow ku ana waxaan rajaynaynaa inaan ka gungaarno wax ka qabato hadallada iyadana waxa ka mid ahaa in la rabo in la baabi'iyo nidaamka federaalka dawlad dhiska lana weeqa kala dambeynta madaxweyne yihiin dadka weeqaya kala dambeynta iyo ama baabi'inaya nidaamka federaalka waxa ka mid ah dawladda federaalka ayaa ka mid ah waxyaabaha ay sameynayso waxa ka mid ah in ay had u soo jeesatay in ay rabto inay maamulka Puntland madaxdiisa iyo nidaamkiisa si toos ah u xiriirin waxay isku dayaysaa inay bulshada iyo deegaanada iyo dad gaar ah ay si toos ah u xiriirto taas waa mid ka hor imaanaysa nidaamkii dawlad dhiska ee Soomaaliya ku socotay ayay bulshada inaan u adeegno Puntland anaga habeenii maalin taagan waa maamul 20 sano jiray leh dhammaan hay'adaha fulinta ee dalka heer gobol heer degmo heer tuulo iyo heer dawlad state-ba diyaarna in inay ummadooda adeegaan waxaana markaanti doonta ah Puntland in ay xarumaheeda ugu muhiimsan oo waliba xuduudaha marka la fiiriyo Bohol marka la fiiriyo Galdogob marka la fiiriyo Baran marka la fiiriyo magaalooyinkaas oo dhan inta aanan isolationada xamar laga sameeyay ayaa qaybtood sameeyay waxay muujinaysay inay Puntland diyaar u ahayd inay mas'uuliyadeeda gudato laakiin habka hadda dhaqanku u socdo mararka qaarkood waxaan moodaa wax walba in la siyaasadeeyay madaxweyne waa eedayn culus laakiin wax aad dadka Soomaaliyeed u sheegi kartid ama dadka reer Puntland oo taabasho leh oo cadayn leh oo burburinta ay dawladda dhexe idinku wado ama madaxdeedu ma noo sheegi kartaa hadda diyaar uma ahayn inaan tafaasiil halka uga warramo waayo madaxweyne waqtigeeda iyo madasheeda